Bismillahirrahmanirrahiim. Casharkan waxaynu ku soo qaadan doonaa qaybtii ugu dambeysay ee Pre-Entry Bookska waxaanaynu ku eegi doonaa buuggii ugu dambeeyay oo la yiraahdo Petty Cash Book. Marka waxaynu samayn doonaa journaliskii waayo casharadii hore oo dhan waxaynu ku soo sharxaynay buugaagta xisaabaadka ee businesska sida loo record gareeyo kadibna loo joornaal gareeyo. Marka kanna waa buuggii ugu dambeeyay buugaagtii Pre-Entry-ga ee hore aynu soo qaadanay badankooda kaas oo si la mid ah aynu ugu joornaal gareyn doono sidoo kale. Haddaba Petty Cash Bookga waxaa lagu record gareeyaa dhammaan receiptska iyo payments cash on hand-ka. Cash on hand-ka waxaa loo yaqaanaa lacagta kaashka ah ee gacantaada aad ku haysid ama kaaga baxda kaash ahaan. Inta badan Petty Cashku sida magaca inooga muuqata waa kaashka waxyaabaha yaryar ee kharashaadka lagu bixiyo sida shaaha, bunka, buskudka, boostejada, taksiga la raacayo iyo wixii la mid ah. Marka run ahaantii waa kharashaad aad u yaryar kuwaas. Kharashaadkaasina waxay tegi doonaan financial statement-keena. Marka weli waxaynu u baahannahay in aynu record gareyno books of Pre-Entry-geenii sidoo kalena waxaynu weli u baahannahay in aynu ku boos gareyno totalka manager-keena. Ugu dambeyntiina aynu geyno financial statement-keena. Haddaba waxaynu aragnaa in uu aad uga duwan yahay foomkani kuwii buugaagtii hore. Waxaynu eegi doonaa receipt column-ka marka ugu horeysa waana column-ka ay wax ka soo galaan Petty Cash-ka. Waxaynu ku aragnaa halkan in aynu helnay receipt ah $100. Sidoo kalena waxaynu haysanaa date-kii iyo in aynu banka ka helnay $100. Haddaba sidee ayuu u ekaan doonaa ayaad is odhan lahayd double entry-geen. Ugu horeyntii lacagta aynu banka ka soo saarnay waynu credit gareyn doonaa waxaanaynu debit gareyn doonaa Petty Cash-ka asset account-keena. Haddii aynu dhigno Petty Cash-keena lacag waa in aynu debit gareyno Petty Cash-ka asset-keena oo ay badato. Sidoo kalena waxaynu credit gareyn doonaa si aynu u yareyno bank asset-keena. Waxaanaynu samaynay 1 December waxaanaynu aragnaa waxoogaa items ah oo expenditure ama kharashaad ah oo aynu ka saarnay Petty Cash-keena sida tea, coffee, stamps iyo buskut. Halkanna waxaynu ku aragnaa dhammaan lacagihii laga bixiyay Petty Cash-keena oo dhan. $5 oo mar ah, $10 oo mar ah, $2 oo mar ah oo aynu xagga hoosena totalkoogii aynu dhignay oo ah $17 oo laga bixiyay Petty Cash-ka. Intaasi kadib waxaynu kala saari doonaa waxyaabaha laga bixiyay Petty Cash-ka waxay kala yihiin. Ma waxaynu ku bixinay postages-ka mise waxaynu ku bixinay refreshment sida tea, coffee iyo buskut. Waxaynu ku boos gareyn doonaa manager-keena totalka. Marka totalka kaashka laga bixiyay Petty Cash-ka wuxuu yareyn doonaa Petty Cash asset-keena. Marka waa in aynu credit gareyno si aynu u yareyno Petty Cash asset-keena si aynu uga jarno $100 ee aynu ka soo qaadanay bankeena. Debit kasta iyo credit kastaaba waa in ay lahaadaan laba dhinac oo isku mid ah. Marka $10 wuxuu tegi doonaa debitka oo wuxuu badin doonaa postages-keena la bixiyay oo ah expense account oo kordhina doonta postage expense. $7 waa refreshment dabcan taasina waxay tegi doontaa debitkeena oo noqon doonta refreshment expense. Waxaanaynu debit gareyn doonaa refreshment expenses. Waxaanaynu aragnaa creditka aynu ka goynay Petty Cash asset-keena waxay la mid tahay
labada dhibid ee postage-ka iyo refreshmentiska. haddaba imika waxaynu eegi doonaa sida uu u eekaan doono petty cash ledger account-ku. marka haddii aynu furanno t account ledger account-keena oo la yidhaahdo petty cash, waxaynu haysanaa balance book forward-keenii baankeena oo ah $100, taas oo ah lacagtii laga soo saaray baankeena. intaa ka bacdina waxaynu credit garayn doonaa voucherska expenseski lagu bixiyey petty cash-keena. mar kasta oo aynu ka bixinno lacag petty cash-keena waxaynu qori doonaa vouchers oo aynu kaga saari doono resiptigeena expenseska aynu bixinayno, si aynu u ogaano intee in leeg oo expenditure ah ayaynu ka saarnay. xasuusnaadana petty cash-ku waa asset. $100 haddii aad u dhigtid petty cash ahaan waa lacag badan, markaa waa in aad kontarooshid halka ay ku baxayso lacagtaas. waxaanaynu u qori doonaa voucher nooc kasta oo ka mid ah expenditure-ka aynu bixinayno. mar kasta oo aynu shaah iyo kafee aynu soo iibsanayno oo aynu ka saarno petty cash-keena lacag, waxaynu u qori doonaa voucher waxaanaynu ku rikoodh garayn doonaa petty cash-keena kadib. marka $17 waxaynu ka saarnay petty cash-keena dhammaadka xilli xisaabaadkeena. waxaynu doonaynaa in aynu dhigno petty cash-ka baanka, waxaanaynu credit garayn doonaa $17 ee laga saaray baanka. sidoo kalena waxaynu ku dhibid garayn doonaa petty cash asset-keena. marka wakhtiga xilli xisaabeedka balance carry forward-ku waa $100 oo noqon doona balance book forward-ka xilli xisaabeedka dambe, oo ku bilaabmi doona kuna dhammaan doona amount-kan. petty cash-ka opening-ka iyo closing balance-ka asset-ku inta badan ledger account-ka waxay u taagan tahay fixed amount. taasina waa sida petty cash-ka loo sameeyo. halkaasna waxaynu ku soo gabagabaynay pre-entry bookiskii oo uu inugu dambeeyey petty cash buugga. waad mahadsantihiin.